annagoo ah koox wariyaal ka tirsan warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waxaynu qayb ka nahay kulanyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaynu ciidanka la gaarnay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ka wadaan howlgallo lagu ciribtirayo maleeshiyaadka kooxda argagixisada Al-Shabaab. Ujeedkeena ayaa waxa uu yahay si aan ummadda Soomaaliyeed ugu soo bandhigno wararka ku saabsan howlgallada geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku baacsanayaan kooxda argagixisada Al-Shabaab. Waxaan haatan ku sugannahay deegaanka Toorotorow ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaankan ayaa waxa uu caan ku yahay maxkamad beenaad maleeshiyaadka Al-Shabaab ay halkaasi ka samaysteen oo ay ku dhibaateyn jireen shacabka Soomaaliyeed. Waxaa howlgal ka wada ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab. Howlgalka ayaa waxa uu qayb ka yahay howlgallo maalmahan ay ciidanka ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kaasi oo lagaga hortegayo dhagarta kooxda argagixisada Al-Shabaab ay u soo maleegaan shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba ka galabsan, balse ciidanka geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa burburiyey gaadiid waxyaabaha qarxa ay ku diyaariyeen. Intii ciidanka ay howlgalka ka wadeen deegaanka Toorotorow waxa ay ku burburiyeen saldhiggii Al-Shabaab ay halkaasi ku lahaayeen. Ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska Danab ayaa markii ay gaareen deegaankaasi Toorotorow waxay bilaabeen xaqiijinta ammaanka deegaankaasi. Gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee isticmaala wadooyinka soo gala iyo kuwa dhinaca ka mara deegaankaasi ayay baaritaano amniga ay ku xaqiijinayaan ku sameynayeen. Intii howlgalka uu socday waxay ciidanka gacanta ku soo dhigeen horjoogihii maleeshiyaadka Al-Shabaab u qaabilsanaa qaadista lacagaha baadda ah ee ay ka qaadaan gaadiidka wadooyinkaasi isticmaala, kaasi oo lagu magacaabo Ibrahim Dheere. Sidoo kale ciidanka ayaa qaarijiyey 7 ka mid ah maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Daawadayaal, sida aad haatan u jeedaan, ciidanka waxay gebi ahaanba burburiyeen saldhiggii Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi Toorotorow. Maleeshiyaadka nabadiidka Al-Shabaab ayaa isaga cararay dhammaan deegaanada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgallada ka wadaan. Deegaanada ciidanka kumaandooska xoogga dalka ay howlgallada ka fuliyeen waxaa ka mid ah tuulada Caliyo Barow, deegaanka Toorotorow, tuulada Farsooley, tuulada Duguley, deegaanka Mubaarak, Daarusalaam iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Hoose. Dhinaca kale, ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor ayaa howlgallo kala mid ah ka sameeyey deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasi oo ay ka mid yihiin tuulooyinka Cumar Cismaan Duure, Gaawire, Nuungare, Xasan Cadow, Shaam Gare iyo deegaano kale oo hoostaga degmooyinka Afgooye iyo Awdheegle ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose. Ujeedka howlgalka ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Gorgor ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ahaa ciribtirka kooxda nabadiidka Al-Shabaab iyo ka hortagga dhagartooda. Maxamed Muuse Maxamed, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, gobolka Shabeellaha Hoose.